السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan ardayda iyo dadka kale ku xidhan baa channelkeena casharada caafimaadka waxaad ku soo dhawaataan course-keena noo socday cytology-ga ahaa waliba lesson-keena saddexaad ayaan marinaynay. marka maanta waxaan qaadanaa lesson-keena saddexaad lesson 1 iyo lesson 2 waxaad ka helaysaan YouTube-keena casharada caafimaadka. waxaan qaadan doonaa maanta bal wuxuu cell membrane-ku muxuu yahay baan qaadan doonaa oo cell membrane baan maanta qaadan doonaa wuxuu yahay intii hore introduction iyo waxbay ahayd. cell membrane maanta maxaan eegi doonaa objectives-ka ahdaafka markaan laga doonayo inaan dhamaystirno maxay tahay waxa weeye definition-kiisa qeexitaankiisa inaan ogaano, structure-kiisa qaabkiisa inaan ogaano iyo function iyo shaqooyinka markaa ay noo qabto cell membrane-keenu. haddaan ku horeyno definition-ku waxa weeye waa cell membrane-ku waa thin membrane, waa membrane yar oo dhuuban that surrounding kaasoo ku eegaysan every living cell kastoo markaa nool kaasoo markaa ku eegaysan cell kastoo markaa jira hada cellkaas cell plant cellka aado ama animal cellka aado. waa kana sida nooga muuqata sawirka halkaa loo soo weynaysiiyey waxa weeye waa structure-kiisii qaabkiisii ama waxa loo soo weynaysiiyey xag u dhaco cell membrane-ku waxa weeye surrounding ku eegaysan dhammaan waxa ku jira organelles-kii ayaa ku jira. organelles-kana markaa iyagana gaarkooda qaadan doonaa maanta cell membrane-kan horta ka warramanaa wuxuu yahay isagu. haddaan ku xijino kii ugu xigay waa structure-ka cell membrane-kan wuxuu ka samaysan yahay phospholipid bilayer buu ka samaysan yahay layer wuxuu ka samaysan bilayer laba layer buu ka samaysan yahay oo ah baruur ah iyo phosphate. phospholipid haddaan ku horeyno phospholipid waxa weeye uu nidhi waa r lipid molecule waa molecule lipid oo fada made up uu ka samaysan yahay. phosphate group-ku waa head buu noqonayaa and two fatty acids-ku waxay noqonayaan tails buu noqonayaan. haddaan sii soconno importantly muhiimada property astaanta of phospholipid molecule-ku allo wuxuu noo ogolaadaa them to substantial form and layer. haddaba muhiimadu waxa weeye phospholipid bilayer-kan haddaba phosphate-kuna yahay headki yahay tail-kuna yahay fatty acid-ki intaas waxay noo ogolaanaysaa inuu samaysmo wax loo yaqaano double layer membrane. sawir ahaan haddaan yara eegnana waa kan phospholipid bilayer-ku structure-kiisu qaabka weeye. halkaa hadda arkaysaan fallaadha ugu horeysa ka taagan tahayna waa tail, waa dibkii oo waa fatty acid-ki weeye, waa two fatty acid laba dib haddaad ku aragtaan madaxa laba dib baa ka taagan waa two fatty acid-ki oo tailkiya. madaxan yarna waa phosphate group-kiyo waa head weeye. haddaan ka soconno function shaqooyinkiisa waxa weeye profile waxay siiyaan protection for cellka waxay siiyaan protection bay siiyaan cell membrane-ku. cell membrane-kan wuxuu siiyaa cellka protection. transport nutrient nafaqooyinka ayuu markaa noo keenaa ama transport gaadiidka nafaqooyinka markaa ayuu soo qaadaa. they keep wuxuu ka ilaaliyaa toxic substance ashyaada markaa sunta out of the cell ee cellka banaankiisa. haddaan sii socono wuxuu regulate gareeyaa the transport of substance in and out of cell wuxuu maamulaa ama controlaa waxa cellka ka baxaya iyo waxa soo geliya. the profile wuxuu siiyaa structure qaab buu siiyaa for the bridge-keena. end lesson 3 lesson-keena saddexaad ku dhamaaday oo kaga hadlaynay cell membrane-ka definition-kiisa iyo structure-kiisa iyo function-kiisa. waxaa jirta in casharada inaan markiiba ka dhaqdhaqsanayo marka adigu waad yara istaajsan kartaa ka bacdi casharka waad ka qoran kartaa waad wareejisan kartaa. la soco lesson-keena xiga si aad ula socoto subscribe-ta helaawn like-taada waa noo dhiirigelin. mahadsani.